بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رير أهل الذكر. حبيباتي قالياتي سيئتين ما إنا بتقبتين ما شاء الله تبارك الرحمن حيسي حساب الآن. الله إذنكو حفدي ميل كستو أدونكو غنوشين صومالية ميل كستو أدونكو غنوشين نبت قليد نحرس إلى دوشين هات نفط إيه مالك إيه أولاد إيه دين إيه عرض انت الله نو حفتي دمانتين بقى لول كان قالوا نجوغنا الله نو حفتي انت أمريكا إلي جوغتي انت joogto meel kalaba iyo wadankeena inta joogto Allah xifdiyo بعد السلامة برنامجكيني قصة وذكر ما شاء الله نو قد قلايا كدب نو شيغايا أصور سنة كدب ما شاء الله إن قصة ما أنت وحي قصيصة سورة البقرة يفوائد كذا إيه صلي النبي عليه الصلاة والسلام يحوق لذا أنت وحي قصيصة لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر قاس ولا أخريو سورة البقرة ولا أخريو وديا بدونتين سبحان الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي والله إلهي نسكو كين ميشان وإنك لفائدي سنو انت سكن وقفت إسو فائدي ستو إلهي يا قري إلهي محاويدي سنين ربك بقرك ويدي سنين شرطين وإلهي نقبت غير كان إلهي نوافجيو قصة نقود قلايا زلان إيه سوريسي كذا لو ديغانينا إن waxay la soo xirtay gabar yar wadanka Soomaaliya la soo xirtay waxay ugu dhahdaa habar macaan qisooyinkaadan ku xirnaay in badan waxay soo jiidatay tiri qisada suuratul baqara iyo fawaa'idkeeda maxaan rabaa ana waa xanuunsanahay dhibaatooyinka haystay ii sharaxday waxyaabo badan aan ka wada hadalnay inaan maaragtay bilaaba ku dhah gabadhi yareed maasha Allah tabaaraka raxmaan waa ay bilowda suuratul baqara istiriida u gashay waxay dhahdaa habar yar koow horta waxaan qabi jiray madax xanuun fara badan madaxo i xanuuno dhakhtarka neerfaha la igeeyo waxay dhahday xataa timahayga mashan lay karin labada garbood ay xanuuni jireen garbaha ay xanuunaayo markaan timaha shan lay maago labada garbood ay dhacayaan macnaa waxaan isku arkay xabeebtan ii soo duceeyay markastaan rab inaan hadlo xabeebtan yartaa isku arkay ii soo duceeyay بسم الله اللهم صل على محمد waxay dhahda marka garbaha xanuun timaha waxay tiri ma shanlayso kari hooyadee waxay tiri timaha ii shanlaynayso marka timaha shanlayso maago labada garbood ay xanuunayaan labada garbood tabarta ka tagaysaa idhaca madax xanuunka neerfaha waxay tiri neerfaha laga soo baar waa laga waay heer maxaan gaar timahayga aan shanlaynin oo hooyadee intee u geeyo ii shanlayso oo ii dabto oo hal bil oo tinteeda isku xirnaato waxay tiri kalar cad oo gabar cad oo qurux badan aan ahay kalarkeyga dhumay waxay dhahday gabadhan in boga laga qaban jiray gaas camal waxay dhahday raga isla sheekaysana gabar cad qurux badan ah raga markay isla hadalnana waa isku boodeenaba maba wada hadli karnaba mid kasta way iga tagaa iska wadaaf bal ragii dadkii dhan aniga wax aan ka sameeyay ee wada cariisan yihiin cari ii qabaanbo qof blog isaarta dad gabar saaxiibna xataa blog isaarey dhab subhanallah meel iga soo wararan garay way tir dadkii oo dhan ay nacay aniga dhamaa waxay tiri isku buuqa stress in waxyaabaha kale tooda iga yaabiyo waxay aheeday gabadhaas ii sheegtay in ay maaragtay in wax kasto ay rabto inay sameeysato oo u toosinin bas habar marka waxay tir dhibkaas ay haysto waan dareemayaa inaan maaragtay xanuunsanahay laakiin ma qaano si aan maaragtay yeelo waxa dhahday sheekha la iigay quraan saaro quraana la soo saaray labada garbood aan u jeeda laga fuqay ayaan kadib badan waa lagu soo laabtay waayahay gabadha waxaan ku dhahaa waa la taliyay habar macaan gabadheedii suuratul baqara akhriso dikrigaaga la imaaw ma sha Allah tabaaraka raxmaan gabadhii sidii saxda ahayd street oo sameeyay waxay dhahdaa habar yar bishii ramadaanka markaad ii sheegtay in kula soo xiriiray ma wada dhameyn jirin waxaan sameyn jiray subaxina xoogaan ka akhrin jiray hadana duhurkii hadana maqribkii hadana habeenkii markaas sii seexanaa si aan maalintaas u dhameeyo suuratul baqara leen waxa itri suuratul baqara dhameey maalintaas oo dhan in waxay isku dayday gabadha yarta ahayd bisha ramadaan 10keeda markay aheeday inay suuratul baqara bilow ilaa dhamaad akhriso ما شاء الله تبارك الرحمن هذا من فضل ربي
dikrigeygan la imaan jiray tiri habaryar salaadaha kadib haddii ahaan lahayd istikfaarta haddii ahaan lahayd xawqalada haddii ahaan lahayd laa xawla walaa quwa laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin hadday ahaan lahayd salliga nebiga calayhi salaatu salaam horta aniga waxay tiri waxaa aad iyo aad u akhrin jiray salliga nebiga calayhi salaatu salaam iyo suuratulbaqara waxaa dhacday tiri habaryar macaan in markuu 10 dambe dhammaaday habeenkii aan riyooday ciidda maalintii habeenkii ciidda maalintii labaad ciid riyo waxaan ku riyoonay tiri habaryar intaa iga soo baxayaan xinjir weyn dhuuntayda oo jiidmayso oo weyn hadde iga soo baxaysay tiri xinjirtan soo jiida iga soo baxday saacabadaydu buuxay tiri habaryar oo xinjir ah markaasaan yaabay isku dhigan wax oo isku dhigan oo jiidmaayo marka waxaan dhahay tiri hooyo sawir aan u dhaho dadka kacay gabadha yartaa ila joogtana aan isla taaganahay hurdadii markaan ka kacay tiri ka toosay waan yaabay subaxi barqankii habaryar aan baxay dhahda barandadan fadhiista meel yaroo jalbeebka guriga anoo fadhiya habaryar oo timahayga taataabanaya qoorteyda dhabarkeyga aan waxaan arkay tiri habaryar subxaan allah cajiib waxay dhahda habaryar waxaan arkay tiri qori iga taagan qoorta maaragta qoorta dhexdeeda ku taagan waa yaabay waa iska soo jiiday tiri habaryar xanuun ma lahan qoriga waa socyaa habaryar ma istaagay waa leef markaa ma hurdo ogaada hadda riyo ma aha waxaan waa leef waa hameenkii ku riyoonaysaa xinjirtaas inay ma tagtay maantana waxay ku riyoonaysaa waxay samaynaysaa wixii run iska soo jiidaysaa way baxday waxay tiri waan soo jiiday qorigii waan soo jiiday qori dheer oo isleeda subxaan allah intuu ku jiri karaa waxaan oo qori hade waxa laga yaabay ay noqotay tiri qoriga intuu la egyahay dherarkiis subxaan allah oo adag oo jilacsanayn oon la dhahaynin meel ku laabnaayo aan qoorteyda dhabarka qaybta qoorta wareegay leedahay qaybta dambe oo dhabarka iyo madaxa u dhaxayso ay kasoo baxayso qorigaan aragnay tiri maalintan habaryar qorigaas iska soo saaray oo qoorteyda ka soo saaray horta madax xanuun maalinta ugu dambaysa waxay tiri timahayga gacanta kama saaray tinta waa iga daadi jirtay tiri idinka kale ilaaba tintayda dhulka imaan jirta dhulka hadda waxay tiri habaryar timihii way ii qurux badnaadeen way ii soo baxeen waa ramadaanka ciidii maalintii hameenkii kow maalinta labaad feedbackane waa shalay toole laakiin ka hor qisooyin fara badan gabadha ila wadaagaysay ay arkaysay ramadaanka intoo bilaabanin ilaa iyo ramadaanka 10kiisa dambe ila soo wadaagi jirta gabadha ay dhigi jirta habar markaan dikrikaas akhrista kanaan ka faa'iiday habar saanaan arkay qisooyinkeedu way soo socdaan qisooyin kala dardaran laakiin tan waxay tahay xanuunkii iyo dhibkii hayay gabadhan yartaa maasha allah tabaaraka raxmaan ilaahay ka saaray tan way ka bedelantahay kuwii kaleetood riyooyin cajiiba way arki jirtaba oo markay maaragtay salaatuleelka tukato iyo waxyaabo badan oo aniga mar kale idinku la qaybsan doono oo tan inaad ka dhaxgalaan diida ay ku riyoon jirto ayadoo samada korkeed kursi u yaalo gabadhan qurux badan marka intaasna waa ilmo yaro gabar yaro dhalinyaro hadda soo baxday oo ku jirto mataqaanaa 20geedii oo haddana maasha allah tabaaraka raxmaan dadaashay ilmaha yaryar waalidku ahaa waxaan rabaa inaan ku gubaabiitan iyo gabar kasto hooyo ha ahaato ama ay ahaanin maamo weyn ha noqoto gabar yar ha noqoto dhalinyaro ilmaha yaryar all natiijada waxay ku xiran tahay idinka ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri ummadeyda aniga ma ibtaleeyo ayaga isdhibaateeyaan gacmahooda isku dhibaateeyaan marka gacmaheena isku dhibaateyn karna gacmaheena isku toosi karna qeyrkeena aadna waa maasha allah qisadii markaan idiin sii wada gabadha waxay tirtimii horta waa iga daadashad waa joojiyeen stop ay dhaheen nafaqadeedan iska marsaday tiri habaryar kaala aragtimi waa ii qurux badnaa waa ii dhalaaleen shayni ay noqdeen midda kaleetoodna waxay tiri habaryar abateedku waa ii furma maasha allah kalarkii jirkeyga waa soo laabtay habaryar maasha allah tabaaraka raxmaan quruxdii qanaacada aan yeeshtay habaryar ma malayn kartay xanuunkii waxay tiri ilaaha iga siibay garba xanuun dambe iskuma arkin neerfihii la ii malaynay inuu neerfo qabo oo dhakhtarka talageeyay oo negative soo dhahay wixii oo dhan waa ka fiicnaaday tiri habaryar maasha allah tabaaraka raxmaan ma malayn kartay tiri sidaan noqday waxay dhahday taleefankeyga meelay ka keensadeen ummadda kaala sheeg wiilkuu jaamacad soo dhameeyey ka aqyaarsan yahay ka barakaysan yahay taleefankeyga sas
wax layga tagoon ma lahan anaa dadkii nooc way tiradoodii kala qabala dadkii walaalaha ahaa ee gabdhaha hadday ahaan lahayd saaxiibo aana iyo hadday ahaan lahayd dad family hadday ahaan lahayd friend kulli happy farxad way soo raadinayaan way soo salaamayaan dadkii aad moodina colaad naga dhexaysay oo aniga dhan bay arki karin ilaaha waxay tiri iiga dhiga hooyo aabo habar yar suuratul baqara faa'iidada aan ka hela ma malayn kartid caafimaadkaygaba horta maasha allah tabaarak raxmaan weligeen ma dhaafi doonay